نبي صلى الله عليه وسلم وحده حديث لبض الشيخ باي صو صارين يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كعبة واحد دبين دونا وخرابين دونا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كو ان حوجج ملك يعني حوجج يسوي دوبين كو حوجج دوبان أو حبشة معناها حبشة بقى كسر دولي دونتا وكعبة بربرين دونتا رواية كله أو ابن عباس ورينا يو بخاري ورينا يو ورسول الله صلى الله عليه وسلم كأني به أسود أفجع يقلعها حجرا حجرا أما يعني سير رواية كله وحويان مد بدار له وحوجك دادير والله دوبان أو كعبة دقح وقاضية واحد موداب النبي صلى الله عليه وسلم إن عندها بكوايو عندها هنا كوايو حديث كاسوح تلمامية آخر الزمن كان إن حبشيدو أي دومين دونان كعبة تلمامية حديث كان يا آياتنا إسكاموري من أيام وكان وحويان وآخر الزمن كان آخر الزمن كان أيا وحي من دونه marka qof ilaahay caabudayo Allah leebal la waayo inay xabashidu meesha soo galaan kadibna kacbada ay qabsadaan oo ay dhagax u qaadaan ifafaaleedii ba muuqda hadii aad diyaarad raacdo ku socota imaaraadka ama ku socota jidda ku socota boqolkiiba 99 dadka la socda waa xabashi way xabashi arintana waxay soo dhaweysay calaamaadkii saacada markaan sidaa u dhigna waxaan leenahay madaxweynaha Muuse wuxuu gogol xaar fiican u sameeyay wuxuu gogol xaaray in xabashidu kacbada qabsato inay xabashidu kacbada ay qabsato ay xaramka burburiyaan oo dhagax u qaadaan sidii rasuulka sallallahu alayhi wasallam tilmaamay ayaa madaxweyne Muuse sahlay oo u gogol xaaray waana taariikh madowey وتاريخ مدوي وآخر العمر ونندأ أقاني وما دقنو وواي أرق وعن لنا إلهي وطوبتكين ضدك عقل قادها فضيت سنين ضدك ضد قراد لا كجرة ضد أقوان لا كجرة ضد وحقار لا كجرة واستخفاف ضدك عقل قادها فضيت سنين قرات كودها فداي سنين ضدني ما دودها هفداي سنين همودين ضلك إيا ضدكبا إن هذا ضوء لا يضاهي ضدك إلهي بالي ضلك إلهي بدلك دقي كن إيا دور بقول السنة أيا دي قودي ومدى مسلمين تاو كوبا باي سيدادو قراتي أدوكو سيفضد إن هذا ترى هذا وانو صحيحي من أنت أدوكو ما تاي شخصي ما تاي ومدى كمدا ما يالي كرتدي ومدنا ويديدي عقلنا ما وقلان هيا تدينا وقلان ما يصون وعن لاهي إلهي سبحانه وتعالى ومدها لقى بقو إن عالم الإسلامي أردن ما أنت دبرك لقى تاجا ورن اتفاقية داسي وحي عالم الإسلامي وحو دبرك كقعد فتاي ورن قد بدلولي حبشيدو maxay sameynayaan maxaradu irbad hadoo ku turqay maxay sameynayaan iyaguna tib bay gelinayaan tib bal cidda maamo hogaaminaysa iga sheekeeya marka ay xabashidu yimaadaan saldhig markay badda ka sameystaan cidda awood u leh ee kantaroolaysa ee xuduudda la sheegay ku ilaalinaysa waa ayo imika badda la boobaya imika khayraadkii la guranaya laakiin dadka guranay waa tuugo way ogyihiin inay tuugaysanayaan way ogyihiin dalkooda inayna ahayn laakiin markuu nin isbidayaba in la siiyeyba meesha bay la siiyay markuu meesha qabsado waxa weeyaan caalamul islaami oo dhan bay tahdiid ku tahay waxaan leenahay madaxweynaha war taariikh xumaha ku dhimanin ilaahay ummadda kaga cabso ilaahay khaaliqaya ku abuuray ummadda kaga baq war ummaduna waa inay waxay leedahay iyo waxa madaxweyne ka talin kara waa inay gartaan waxaan leeyahay nimanka mas'uuliyiinta ah ee la doortay baarlamaanka fadhiya iyo kuwa odayaasha majlis shuyuukh ummadda idinka masiirkeedii gacanta ku haya taariikh baa qormaysa
taariikh madow ha qorina ubadkeena iyo kuwa dambe iyo kuwa soo socda taariikh madow ha uga tagina dadka qaarkood baa waxay oranayaan maynaka waxba ku hayna badda mayna shaqan ka helayna wadad aan taariikh garanayn wadad aragtidooda iyo waqtiga uu joogo iyo wuxuu guriga marin lahaa ay u muuqato waxay yiraahdaan man la maadiya lahu la haadira lahu ومن لا حاضر له لا مستقبل له qofka aanan maadi hore lahayn taariikh hore oo milicsanayo male xaadir waqti jooga male oo xaadira waayo waxa ku bineeya noloshiisa ma hayo qofka aanan maanta aan waxaysan oo wax qabsan karayna wax soo socdo mustaqbal male dadku markayna taariikhdooda dib u eegin oo aan taariikhdeena in luminayno caadifad ku luminayno waa dib weey waxaad moodaysaa inaan ree hebel dartii inaan diinta uga baxayno war diinteeni iyo dadnimadeeni iyo damiirkeeni ma waxaan ku luminaa ree hebel inaan u cadhoonayno war aaway taariikhdeeni soo jireenka aaway niman gaala la keenay oo waliba aamiin la leeyahay anigu ma garanayo gaal ducaynaya ducadiisa sharci ahaan mas'ala sharciya gaal saliib wata waxay Soomaalidu yani waxa weeyaan war wax kasta oo adarka ilaa intaad nooshahay wax kasta oo adarka gaal saliib wata oo ducaynaya oo aamiin la leeyahay dad muslimiin hareere joogan oo laftinaga maxay naga aamiin talaayo war maan ilaahay laga baqaynin war gaal aamiin la yiraahdo aamiin gaal kan ducaynaya muxuu ku ducaynayaa horta waaba gaale waxana u baryayo waayo de sanam iyo waxana ilaahay in buu barya nabi ilaahay ciise u barya haduu doono ama sanam kale u barya markaas baad leedahay aamiin aamiin gaal aamiin ma looran kara waa mas'ala sharci ah oo in badan oo culimada kamid ah ilaahay maya ma banaano waayo waxana uu ku ducanayo waxa ducadiisu ma aha maqbuula ma aha waxana u baryayina waa wax kala de ilaahay ma aha rabbiga khaaliqi ma ma in ilaahay baryaad moodaysa ma barmaysna ilaahay sibu baryaade adiguna ilaahay uu baryay waxa ilaahay uu baryay ka doonayo ayaad leedahay ilaahuna aadnaad leedahay la hawla wala quwwata illa billah war ma halka baan marayna billahi alaykum halka baan marayna oo nacayb aan isnacabnahay Soomaali hadaan nahay miyay gaaraysaa inaan waxaan doonno u qaadano on dadnimadeena iyo diinteena u lumino on dalkeena u baabiino on mustaqbalkii da'yarta aan qabri ku ridno maanta hadaan wax qabsanayn bari dad baa u imanaya oo wax qabsanaya laakiin maxaa raganimo sidii dadkii hore ay dalka u ilaaliyeen inaanu ilaalino kuwa qaar baa wax ka qabsanaya marka waxa weeye waxaan ku soo khulaasaynaya aan ku soo gabagabaynaya waxaan ku soo khulaasaynaya waxa aan leeyahay waa laga yaabaa in dad badan damaqdo laakiin waxaan nii sheegaya oo in badan nigu celcelinaya waxa la yiri runtu dad badan bay ka naxisaa in badan baan raalidayn ka in runtu dad badan bay arag gelinaysaa laakiin waxa runta ee laga maarmaanka ee biyo kama dhibcaanka waa intaan nii sheegayo waxaan leeyahay taariikhda aan ka waranay kadib idinka ayaa jawaabta celin doona idinka ayaa marka waxa weyn tahliilini waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariya dhamaantaan ilaahay khayrka inuu waafajiyo inta madaxda ana ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq inuu ku soo dabaalo maslaxada ummadda halka ay ku jirto maslaxada diinta halka ay ku jirto in ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyaan ilaahay ka bariyana ilaahay inakana uu toosiyo midnimo iyo walaalnimo iyo islaamnimo ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu mideeyo